kulanka qabsamay xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isla markaana ku wehelinayeen mas'uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka beeraha qorsheynta qaranka iyo wakiilo iyaguna ka socda hay'adda UNICEF ayaa shirkani oo nuxurkiisu ahaa doorka Soomaaliland ku leedahay dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah ee la dagaalanka nafaqa darrada soo wajahda hooyada iyo dhallaanka waxa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saylici oo kolkii shirkaasi soo dhamaaday tafaasiil ka bixiyay waxa uu tilmaamay in ujeedada ugu weyn ay ahayd ee ay labada dhinac isla qaateen sidii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qayb uga noqon lahayd dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah ee lagaga hortagayo amba lagula dagaalamayo nafaqa darrada had iyo jeer soo wajahda hooyada iyo dhallaanka waxaana madaxweyne xigeenka hadaladiisii ka mid ahaa maanta halkan soo joogsanay anaga iyo madaxdani ka socota hay'adda UNICEF dhaqdhaqaaq cusub oo la raasan oo lagu xoojinayo nafaqeynta caruurta oo soo bilaabmay sanadkii 2010 ayaa waxaan halka maanta cadeynayna in Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid noqotay dhaqdhaqaaqaasi lagula dagaalamayo nafaqa darrada ay wada in ay caalamku ay wadaan jimciyadda qurumaha deeq bixiyaasha civil society-ga kala duwan adduunyada waxaan anagu halka cadeynayna la qaadanay hay'adaha UN-ka inay arrintaas oo alaf dhabar ah caafimaadka caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka nafaqeyntooda iyo dhaqdhaqaaqan oo oranaya in dadku xaq siman u leeyihiin inay helaan cunto iyo nafaqo ku filan si ummadda maanta la isku miisaamo kooda faqiirka iyo kooda taajirka inay ummadda reer Soomaaliland helaan nafaqo ku filan taasna maanta halka la jeclaynaa waxayna quseynaysaa wasaarada kala duwan oo nafaqada soo galaya waxa roolka koowaad leh wasaaradda caafimaadka laakiin waxa soo galaya wasaaradda beeraha cuntadii beeraysa wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda qorsheynta qaranka oo qorsheynta qaranka wada dhowr wasaarado aynkaas ayaa soo galaya marka waxaan liid gareyn doona xafiiska madaxweynaha liid gareyn doona insha Allah sidaas darteed waxaan la qaadanay hawshaasi iyagoo ay nala ballan qaadeen inay hawshaasi movementka cusub ama dhaqaaqa cusub ee caalamku u dhaqaaqay sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan dadka cunto iyo nafaqo siman u helayeen waan la qaadanaa anaguna aad iyo aad buu maasantii waan u mahadnaqaynaa hay'adda UNICEF oo imika iyada hogaaminaysa mashruucan la yiraahdo san ama dhaqdhaqaaq la yiraahdo san oo bilaabmay oo ah la dagaalanka nafaqa darrada madaxdii ka socotay dhinaca UNICEF ayaa iyaguna waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ahmiyadda ay leedahay ka qayb noqoshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhaqdhaqaaqa caalamiga ah waad ku mahadsantihiin waqtiga dheer ee aad u qoondayseen sidii aad u taageeri lahaydeen isla markaana u garab istaagi lahaydeen qaynta caruurta ee ay wado qoyska qaramada midoobay kaas oo loogu talagalay sidii loo nafaqeyn lahaa caruurta iyo hooyada isla markaana looga hortagi lahaa nafaqa darrada soo wajahda